ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah wadaadada quraanka dadka saara oo lagu eedeeyay inuu quraansaarka si qaldan u adeegsaday. inta yiri quraanaan ku saarayaa faraxumeeyay dhibaateeyay uur u yeelay uurkina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyay la soo daayay oo si sharci darro loo soo daayay inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka Banaadir sharafay u tahay ummadda Soomaaliyeedna sharafay u tahay dawladda Soomaaliyeedna sharafay u tahay. warkii hore war soo dhaafneen adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban waana halka ay reer xamarku ka yiraahdaan cumrigaaga hadisraagu geeldhalay asku tusinaa daawadayaal barnaamijkan maanta idin wada uu ku duwan yahay barnaamijyadii hore waxaana uu ku saabsan yahay sheekh u galmooday gabar maskiina oo xaruntiisa loogu keenay si uu quraan saaro. haddaba daawadayaal intaynaan u guda galin barnaamijka oo dhammaystiran haddii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saarto sidoo kale aad furato gambaleelka yar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aanu maalin walba halkan soo gelino. waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka dhacday dhacdo ugub ku ah cariga Soomaalidu degto. dhacdadaas ugubka ayaa waxa ay tahay sheekh caan ah oo u galmooday gabar xanuunsan oo loogu keenay xaruntiisa si uu quraan saaro. gabadha quraanka lagu akhrinayay ayaa waxa lagu magacaabaa Fartuun Jaamac waxaana gabar muddo badan la xanuunsanaysay xanuunka asiiba gacmaha oo neerfayaasha ayaa qalali jiray marmarka qaar balse qoyskeeda ayaa go'aansaday inay u geeyaan sheekhan oo aan magaciisa qarinayno anagoo ixtiraamayna eegaynana bini'aadantinimada ama xuquuqda uu qofka bini'aadamka leeyahay. si kastaba ha ahaatee sheekhan ayaa gabadhii xanuunsaneed loo geeyay waqtiga loo geeyay waxa ay ku beegneed 2 saac oo subaxnimo. qoyskeeda ayaa markii ay u geeyeen waxa uu ku yiri gabadhiina quraanka waan ku akhrinayaa biyo tahliilna waan cabsiinayaa lacag la'aan ayaan idinku daaweynayaa balse wixii yiri waxaan rabaa inaad gabadha iga tagtaan oo aad galabtii u soo laabataan. qoyskoodu way ka yeeleen gabadhii xanuunsaneedna waa ay uga tageen. sheekha ayaa markii la gaaray waqtigii salaada oo bukaanadii kale oo meesha joogay ay ka tageen waxa uu yeeray mid ka mid ah shaqaalaha xarunta oo meesha ku sugnaa waxaana uu ku yiri maanta waan ku fasaxayaa ee orado xaafadiina aad. kadib markii wiilkii tagay sheekhi waxa uu daandaansaday gabadhii miskiinta ahayd waxaana uu ku khasbay inay galmo la samayso isagoo hawshii galmada ahayd ku jira ayaana lagu qabtay waxaana loo wacay ciidamada booliska degmada Yaaqshiid. ciidanka booliska ayaana gacanta ku dhigay haddana waxa uu ku xiran yahay mid ka mid ah saldhigyada ku yaala magaalada Muqdisho. sheekhan ayaa markii la xiray kadib xabsiga ka baxsaday mar labaad ayaana gacanta lagu soo dhigay oo hadda waa cadaalad. haddaba dhacdadan ayaa noqotay mid fajac iyo argagax ku reebtay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. ninkan hadda waa cadaalad suge haddii lagu dhaw wax ku xukun maxaad ku xukumi lahayd fadlan fikradaada qaybta hoose ee commentiga noogu reeb. ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah wadaadada quraanka dadka saara oo lagu eedeeyay inuu quraansaarka si qaldan u adeegsaday. ninkan oo magaciisa aanu u sheegi karin sababa sharciga la xiriira waxa loo haystaa inuu u galmooday oo carruurna ka dhalay gabar Soomaaliyeed oo reeraheeda u geeyeen inuu quraan saaro. ciidamada amniga maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Shibis ayaa xaqiijiyay inay socdaan baaritaan arrintan la xiriira dhawaana la soo bandhigi doono cadaymihii iyo goobihii falalkan ay ka dhici jireen. gabadha intaas leeg inta yiri quraanaan ku saarayaa faraxumeeyay dhibaateeyay uur u yeelay uurkina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyay la soo daayay oo si sharci darro loo soo daayay inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka Banaadir sharafay u tahay ummadda Soomaaliyeedna sharafay u tahay dawladda Soomaaliyeedna sharafay u tahay. maanta waxaan gacanta ku soo dhignay nin dambiile ah oo gabar yar farxumo ku suubiyay cadaaladda la horgeeyay oo haddana la soo daayay laakiin insha Allah ma dhici doonto qof intuu dambi ka galay inta la qabto la soo deeyo. muddo 6 bilood ah ilmo jira ayuu ku inkiray inta ka dhalay oo yiri waa ku daaweynayaa wax ku quraafaad ku akhriyay kadibna ma dhalin buu yiri wuu inkiray. maxkamad baa la geeyay maxkamadeenu waxba kama sheegi karan laakiin waxay ku soo daayeen si cadaalad darro sababtoo ah qofkan gabar Soomaaliyeed uu faraxumeeyay ilmo ka dhalay waxay ahayd in waajibka uu leeyahay la mariyo ayadoo la marin baa la soo daayay. sida awgeed annaga qawaaniintu waxay qabtaa qofkan dambiga uu galay in lagu qaado haddii la fasaxay annagu dambi cadan ku haynaa haddii maxkamadda soo fasaxday ayadoo dambi cadan ku hayno ma daynayno waa xiraynaa. maxamed cali weheliye Universal TV magaalada Muqdisho.
ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid a wadaadada qur-aanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu qur-aansaarka si qaldan u adeegsaday inta yidhi qur-aanaan ku saarayaa farax xumeeyey dhibaateeyey uur u yeelay uurkiina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyey la soo daayey oo si sharci darraa loo soo daayey inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka banaadirna sharafay u tahay ummadda soomaaliyeedna sharafay u tahay dowladda soomaaliyeedna sharafay u tahay warkii hore war soo dhaafnin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban waana halka ay reer xamarku ka yidhaahdaan cumrigaaga hadisraagu geeldhala ay asku tusinaa daawadayaal barnaamijka aan maanta idiin wada uu ku duwan yahay barnaamijyadii hore waxaana uu ku saabsan yahay shiikh u galmooday gabar maskiina oo xaruntiisa loogu keenay si uu qur-aan saaro haddaba daawadayaal intaynaan u gudagelin barnaamijka oo dhammaystiran haddii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad janalka sabskraibe noo saarto sidoo kale aad furato gambaleelka yar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aanu maalin walba halkan soo gelino waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ka dhacday dhacdo ugub kuwa cariga soomaalidu degto dhacdadaas ugubka ayaa waxa ay tahay shiikh caan ah oo u galmooday gabar xanuunsan oo loogu keenay xaruntiisa si uu qur-aan saaro gabadha qur-aanka lagu akhrinayay ayaa waxa lagu magacaabaa fartuun jaamac waxaana ayd gabar muddo badan la xanuunsanaysay xanuun ka asiibay gacmaha oo neerfayaasha ayaa qalali jiray marmarka qaar balse qoyskeeda ayaa go'aansaday inay u geeyaan shiikhan oo aan magaciisa qarinayno annagoo ixtiraamayna eegaynana bini'aadantinimada ama xuquuqda uu qofka bini'aadamka leeyahay si kastaba ha ahaatee shiikhan ayaa gabadhii xanuunsaneed loo geeyey wakhtiga loo geeyey waxa ay ku beegneed 2 saac oo subaxnimo qoyskeeda ayaa markii ay u geeyeen waxa uu ku yidhi gabadhiina qur-aanka waan ku akhrinayaa biyo taliilena waan cabsiinayaa lacag la-aan ayaan idinku daaweynayaa balse wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad gabadha iiga tagtaan oo aad galabtii u soo laabataan qoyskoodu way ka yeeleen gabadhii xanuunsanaydna waa ay uga tageen shiikha ayaa markii la gaaray wakhtigii salaada oo bukaanadii kale oo meesha joogay ay ka tageen waxa uu u yeeray mid ka mid a shaqaalaha xarunta oo meesha ku sugnaa waxaana uu ku yidhi maanta waan ku fasaxayaa ee orodo xaafadiina aad kadib markii uu wiilkii tagay shiikhii waxa uu daandaansaday gabadhii miskiinta ahayd waxaana uu ku khasbay inay galmo la samayso isagoo hawshii galmada ahayd ku jira ayaana lagu qabtay waxaana loo wacay ciidamada booliska degmada yaaqshiid ciidanka booliska ayaana gacanta ku dhigay haddana waxa uu ku xiran yahay mid ka mid a saldhigyada ku yaala magaalada muqdisho shiikhan ayaa markii la xiray kadib xabsiga ka baxsaday mar labaad ayaana gacanta lagu soo dhigay oo hadda waa cadaalad haddaba dhacdadan ayaa noqotay mid fajac iyo argagax ku reebtay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ninkan hadda waa cadaalad suge haddii lagu dhow wax ku xukun maxaad ku xukumi lahayd fadlan fikradaada qaybta hoose ee commentiga noogu reeb ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid a wadaadada qur-aanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu qur-aansaarka si qaldan u adeegsaday ninkan oo magaciisa aanu u sheegi karin sababa sharciga la xidhiira waxaa loo haystaa inuu u galmooday oo carruurna ka dhalay gabar soomaaliyeed oo reeraheeda u geeyeen inuu qur-aan saaro ciidamada amniga maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada shibis ayaa xaqiijiyey inay socdaan baaritaan arrintan la xidhiira dhowaana lasoo bandhigi doono caddaymihii iyo goobihii falalkan ay ka dhici jireen gabadha intaas la eg inta yidhi qur-aanaan ku saarayaa farax xumeeyey dhibaateeyey uur u yeelay uurkiina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyey la soo daayey oo si sharci darraa loo soo daayey inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka banaadirna sharafay u tahay ummadda soomaaliyeedna sharafay u tahay dowladda soomaaliyeedna sharafay u tahay maanta waxaan gacanta ku soo dhignay nin dembiile ah oo gabar yar farxumo ku suubiyey cadaaladda la horgeeyey oo haddana la soo daayay laakiin insha allah ma dhici doonto qof intuu dembi ka galay inta la qabta la soo deeyo muddo 6 bilood ah ilmo jira ayuu ku inkiray inta ka dhalay oo yidhi waa ku daaweynayaa wax ku khuraafaad ku akhriyey kadibna ma dhalin buu yidhi wuu inkiray maxkamad baa la geeyey maxkamadeennu waxba kama sheegi karan laakiin waxay ku soo daayeen si cadaalad darraa sababto waxa weye qofkan gabar soomaaliyeed buu farax xumeeyey ilmow ka dhalay waxay ahayd in waajibka uu leeyahay la mariyo iyadoon la marin baa la soo daayey sidaa awgeed annaga qawaaniintu waxay qabtaa qofkan dembiga uu galay in lagu qaado haddii la fasaxay annagu dembi cadan ku haynaa haddii maxkamadda soo fasaxday iyadoo dembi cadan ku hayno ma daynayno waa xiraynaa maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho
ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid a wadaadada qur-aanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu qur-aansaarka si qaldan u adeegsaday inta yidhi qur-aanaan ku saarayaa farax xumeeyey dhibaateeyey uur u yeelay uurkiina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyey la soo daayey oo si sharci darraa loo soo daayey inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka banaadirna sharafay u tahay ummadda soomaaliyeedna sharafay u tahay dowladda soomaaliyeedna sharafay u tahay warkii hore war soo dhaaf nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban waana halka ay reer xamarku ka yidhaahdaan cumrigaaga hadisraagu geeldhala ay asku tusinaa daawadayaal barnaamijka aan maanta idiin wada wuu ku duwan yahay barnaamijyadii hore waxaana uu ku saabsan yahay shiikh u galmooday gabar maskiina oo xaruntiisa loogu keenay si uu qur-aan saaro haddaba daawadayaal intaynaan u gudagelin barnaamijka oo dhammaystiran haddii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad janalka sabskraib noo saarto sidoo kale aad furato gambaleelka yar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aanu maalin walba halkan soo gelino waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ka dhacday dhacdo ugub kuwa cariga soomaalida degto dhacdadaas ugubka ayaa waxa ay tahay shiikh caan ah oo u galmooday gabar xanuunsan oo loogu keenay xaruntiisa si uu qur-aan saaro gabadha qur-aanka lagu akhrinayay ayaa waxa lagu magacaabaa fartuun jaamac waxaana ayd gabar muddo badan la xanuunsanaysay xanuunka asiibay gacmaha oo neerfayaasha ayaa qalali jiray marmarka qaar balse qoyskeeda ayaa go'aansaday inay u geeyaan shiikhan oo aan magaciisa qarinayno annagoo ixtiraamayna eegaynana bini'aadantinimada ama xuquuqda uu qofka bini'aadamka leeyahay si kastaba ha haatee shiikhan ayaa gabadhii xanuunsaneed loo geeyey wakhtiga loo geeyey waxa ay ku beegneed 2 saac oo subaxnimo qoyskeeda ayaa markii ay u geeyeen waxa uu ku yidhi gabadhiina qur-aanka waan ku akhrinayaa biyo tahliilena waan cabsiinayaa lacag la-aan ayaan idinku daaweynayaa balse wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad gabadha iga tagtaan oo aad galabtii usoo laabataan qoyskoodu way ka yeeleen gabadhii xanuunsanaydna waa ay uga tageen shiikha ayaa markii la gaaray wakhtigii salaada oo bukaanadii kale oo meesha joogay ay ka tageen waxa uu u yeeray mid ka mid a shaqaalaha xarunta oo meesha ku sugnaa waxaana uu ku yidhi maanta waan ku fasaxayaa ee orodo xaafadiina aad kadib markii uu wiilkii tagay shiikhii waxa uu daandaansaday gabadhii miskiinta ahayd waxaana uu ku khasbay inay galmo la samayso isagoo hawshii galmada ahayd ku jira ayaana lagu qabtay waxaana loo wacay ciidamada booliska degmada yaaqshiid ciidanka booliska ayaana gacanta ku dhigay haddana waxa uu ku xiran yahay mid ka mid a saldhigyada ku yaala magaalada muqdisho shiikhan ayaa markii la xiray kadib xabsiga ka baxsaday mar labaad ayaana gacanta lagu soo dhigay oo hadda waa cadaalad haddaba dhacdadan ayaa noqotay mid fajac iyo argagax ku reebtay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ninkan hadda waa cadaalad suge haddii lagu dhow wax ku xukun maxaad ku xukumi lahayd fadlan fikradaada qaybta hoose ee commentiga noogu reeb ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid a wadaadada qur-aanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu qur-aansaarka si qaldan u adeegsaday ninkan oo magaciisa aanu u sheegi karin sababo sharciga la xidhiira waxaa loo haystaa inuu u galmooday oo carruurna ka dhalay gabar soomaaliyeed oo reeraheeda u geeyeen inuu qur-aan saaro ciidamada amniga maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada shibis ayaa xaqiijiyey inay socdaan baaritaan arrintan la xidhiira dhowaana lasoo bandhigi doono caddaymihii iyo goobihii falalkan ay ka dhici jireen gabadha intaas la eg inta yidhi qur-aanaan ku saarayaa farax xumeeyey dhibaateeyey uur u yeelay uurkiina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyey la soo daayey oo si sharci darraa loo soo daayey inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka banaadirna sharafay u tahay ummadda soomaaliyeedna sharafay u tahay dowladda soomaaliyeedna sharafay u tahay maanta waxaan gacanta ku soo dhignay nin dambiile ah oo gabar yar farxumo ku suubiyey cadaaladda la horgeeyey oo haddana la soo daayay laakiin insha allah ma dhici doonto qof intuu dembi ka galay inta la qabta la soo deeyo muddo 6 bilood ah ilmo jira ayuu ku inkiray inta ka dhalay oo yidhi waa ku daaweynayaa wax ku khuraafaad ku akhriyey kadibna ma dhalin buu yidhi wuu inkiray maxkamad baa la geeyey maxkamadeennu waxba kama sheegi karan laakiin waxay ku soo daayeen si cadaalad darraa sababto waxa weye qofkan gabar soomaaliyeed uu farax xumeeyey ilmow ka dhalay waxay ahayd in waajibka uu leeyahay la mariyo ayadoon la marin baa la soo daayey sidaa awgeed annaga qawaaniintu waxay qabtaa qofkan dembiga uu galay in lagu qaado haddii la fasaxay annagu dembi cadan ku haynaa haddii maxkamadda soo fasaxday ayadoo dembi cadan ku hayno ma daynayno waa xiraynaa maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho
ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah wadaadada qur-aanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu qur-aansaarka si qaldan u adeegsaday inta yidhi qur-aanaan ku saarayaa farax xumeeyey dhibaateeyey uur u yeelay uurkiina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyey la soo daayey oo si sharci darraa loo soo daayey inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka banaadirna sharafay u tahay ummadda soomaaliyeedna sharafay u tahay dowladda soomaaliyeedna sharafay u tahay warkii hore war soo dhaaf nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban waana halka ay reer xamarku ka yidhaahdaan cumrigaaga hadisraagu geeldhala ay asku tusinaa daawadayaal barnaamijka aan maanta idiin wada wuu ku duwan yahay barnaamijyadii hore waxaana uu ku saabsan yahay shiikh u galmooday gabar maskiina oo xaruntiisa loogu keenay si uu quraan saaro haddaba daawadayaal intaynaan u gudagelin barnaamijka oo dhammaystiran haddii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad janalka sabskraib noo saarto sidoo kale aad furato gambaleelka yar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aanu maalin walba halkan soo gelino waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ka dhacday dhacdo ugub kuwa cariga soomaalidu degto dhacdadaas ugubka ayaa waxa ay tahay shiikh caan ah oo u galmooday gabar xanuunsan oo loogu keenay xaruntiisa si uu quraan saaro gabadha quraanka lagu akhrinayay ayaa waxa lagu magacaabaa Fartuun Jaamac waxaana gabar muddo badan la xanuunsanaysay xanuunka asiibay gacmaha oo neerfayaasha ayaa qalali jiray marmarka qaar balse qoyskeeda ayaa go'aansaday inay u geeyaan shiikhan oo aan magaciisa qarinayno annagoo ixtiraamayna eegaynana bini'aadantinimada ama xuquuqda uu qofka bini'aadamka leeyahay si kastaba ha ahaatee shiikhan ayaa gabadhii xanuunsaneed loo geeyey waqtiga loo geeyey waxa ay ku beegneed 2 saac oo subaxnimo qoyskeeda ayaa markii ay u geeyeen waxa uu ku yiri gabadhiina quraanka waan ku akhrinayaa biyo tahliilna waan cabsiinayaa lacag la'aan ayaan idinku daaweynayaa balse wixii yiri waxaan rabaa inaad gabadha iga tagtaan oo aad galabtii u soo laabataan qoyskoodu way ka yeeleen gabadhii xanuunsaneedna waa ay uga tageen shiikha ayaa markii la gaaray waqtigii salaada oo bukaanadii kale oo meesha joogay ay ka tageen waxa uu u yeeray mid ka mid ah shaqaalaha xarunta oo meesha ku sugnaa waxaana uu ku yiri maanta waan ku fasaxayaa ee orado xaafadiina aad kadib markii wiilkii tagay shiikhii waxa uu daandaansaday gabadhii miskiinta ahayd waxaana uu ku khasbay inay galmo la samayso isagoo hawshii galmada ahayd ku jira ayaana lagu qabtay waxaana loo wacay ciidamada booliska degmada Yaaqshiid ciidanka booliska ayaana gacanta ku dhigay haddana waxa uu ku xiran yahay mid ka mid ah saldhigyada ku yaala magaalada Muqdisho shiikhan ayaa markii la xiray kadib xabsiga ka baxsaday mar labaad ayaana gacanta lagu soo dhigay oo hadda waa cadaalad haddaba dhacdadan ayaa noqotay mid fajac iyo argagax ku reebtay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ninkan hadda waa cadaalad suge haddii lagu dhaw wax ku xukun maxaad ku xukumi lahayd fadlan fikradaada qaybta hoose ee commentiga noogu reeb ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah wadaadada quraanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu quraansaarka si qaldan u adeegsaday ninkan oo magaciisa aanu u sheegi karin sababa sharciga la xiriira waxaa loo haystaa inuu u galmooday oo carruurna ka dhalay gabar Soomaaliyeed oo reeraheeda u geeyeen inuu quraan saaro ciidamada amniga maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Shibis ayaa xaqiijiyay inay socdaan baaritaan arrintan la xiriira dhawaana la soo bandhigi doono cadeymihii iyo goobihii falalkan ay ka dhici jireen gabadha intaas leeg inta yiri quraanaan ku saarayaa farax xumeeyey dhibaateeyey uur u yeelay uurkiina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyey la soo daayey oo si sharci darraa loo soo daayey inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka banaadirna sharafay u tahay ummadda Soomaaliyeedna sharafay u tahay dowladda Soomaaliyeedna sharafay u tahay maanta waxaan gacanta ku soo dhignay nin dambiile ah oo gabar yar farxumo ku suubiyey cadaaladda la horgeeyey oo haddana la soo daayey laakiin insha Allah ma dhici doonto qof intuu dambi ka galay inta la qabta la soo deeyo muddo 6 bilood ah ilmo jira ayuu ku inkiray inta ka dhalay oo yiri waa ku daaweynayaa wax ku quraafaad ku akhriyay kadibna ma dhalin buu yiri wuu inkiray maxkamad baa la geeyay maxkamadeenu waxba kama sheegi karan laakiin waxay ku soo daayeen si cadaalad darra sababtoo ah qofkan gabar Soomaaliyeed uu faraxmay ilmo ka dhalay waxay ahayd in waajibka uu leeyahay la mariyo ayadoo la marin baa la soo daayay sida awgeed annaga qawaaniintu waxay qabtaa qofkan dambiga uu galay in lagu qaado haddii la fasaxay annagu dambi cadan ku haynaa haddii maxkamadda soo fasaxday ayadoo dambi cadan ku hayno ma daynayno waa xiraynaa maxamed cali weheliye Universal TV magaalada Muqdisho
ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid a wadaadada qur-aanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu qur-aansaarka si qaldan u adeegsaday inta yidhi qur-aanaan ku saarayaa farax xumeeyey dhibaateeyey uur u yeelay uurkiina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyey la soo daayey oo si sharci darraa loo soo daayey inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka banaadirna sharafay u tahay ummadda soomaaliyeedna sharafay u tahay dowladda soomaaliyeedna sharafay u tahay warkii hore war soo dhaafnin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban waana halka ay reer xamarku ka yidhaahdaan cumrigaaga hadisraagu geeldhala ay asku tusinaa daawadayaal barnaamijka aan maanta idiin wada uu ku duwan yahay barnaamijyadii hore waxaana uu ku saabsan yahay shiikh u galmooday gabar maskiina oo xaruntiisa loogu keenay si uu u qur-aan saaro haddaba daawadayaal intaynaan u gudagelin barnaamijka oo dhammaystiran haddii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad janalka sabskraibe noo saarto sidoo kale aad furato gambaleelka yar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aanu maalin walba halkan soo gelino waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ka dhacday dhacdo ugub kuwa cariga soomaalidu degto dhacdadaas ugubka ayaa waxa ay tahay shiikh caan ah oo u galmooday gabar xanuunsan oo loogu keenay xaruntiisa si uu qur-aan saaro gabadha qur-aanka lagu akhrinayay ayaa waxa lagu magacaabaa fartuun jaamac waxaana ahayd gabar muddo badan la xanuunsanaysay xanuun ka asiibay gacmaha oo neerfayaasha ayaa qalali jiray marmarka qaar balse qoyskeeda ayaa go'aansaday inay u geeyaan shiikhan oo aan magaciisa qarinayno annagoo ixtiraamayna eegaynana bini'aadantinimada ama xuquuqda uu qofka bini'aadamka leeyahay si kastaba ha ahaatee shiikhan ayaa gabadhii xanuunsaneed loo geeyey wakhtiga loo geeyey waxa ay ku beegneed 2 saac oo subaxnimo qoyskeeda ayaa markii ay u geeyeen waxa uu ku yidhi gabadhiina qur-aanka waan ku akhrinayaa biyo tahliilena waan cabsiinayaa lacag la-aan ayaan idinku daaweynayaa balse wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad gabadha iiga tagtaan oo aad galabtii u soo laabataan qoyskoodu way ka yeeleen gabadhii xanuunsanaydna waa ay uga tageen shiikha ayaa markii la gaaray wakhtigii salaada oo bukaanadii kale oo meesha joogay ay ka tageen waxa uu u yeeray mid ka mid a shaqaalaha xarunta oo meesha ku sugnaa waxaana uu ku yidhi maanta waan ku fasaxayaa ee orodo xaafadiina aad kadib markii uu wiilkii tagay shiikhii waxa uu daandaansaday gabadhii miskiinta ahayd waxaana uu ku khasbay inay galmo la samayso isagoo hawshii galmada ahayd ku jira ayaana lagu qabtay waxaana loo wacay ciidamada booliska degmada yaaqshiid ciidanka booliska ayaana gacanta ku dhigay haddana waxa uu ku xiran yahay mid ka mid a saldhigyada ku yaala magaalada muqdisho shiikhan ayaa markii la xiray kadib xabsiga ka baxsaday mar labaad ayaana gacanta lagu soo dhigay oo hadda waa cadaalad haddaba dhacdadan ayaa noqotay mid fajac iyo argagax ku reebtay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ninkan hadda waa cadaalad suge haddii lagu dhaw wax ku xukun maxaad ku xukumi lahayd fadlan fikradaada qaybta hoose ee kommentiga noogu reeb ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid a wadaadada qur-aanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu qur-aansaarka si qaldan u adeegsaday ninkan oo magaciisa aanu u sheegi karin sababa sharciga la xidhiira waxaa loo haystaa inuu u galmooday oo carruurna ka dhalay gabar soomaaliyeed oo reeraheeda u geeyeen inuu qur-aan saaro ciidamada amniga maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada shibis ayaa xaqiijiyey inay socdaan baaritaan arrintan la xidhiira dhowaanna lasoo bandhigi doono caddaymihii iyo goobihii falalkan ay ka dhici jireen gabadha intaas la eg inta yidhi qur-aanaan ku saarayaa farax xumeeyey dhibaateeyey uur u yeelay uurkiina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyey la soo daayey oo si sharci darraa loo soo daayey inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka banaadirna sharafay u tahay ummadda soomaaliyeedna sharafay u tahay dowladda soomaaliyeedna sharafay u tahay maanta waxaan gacanta ku soo dhignay nin dembiile ah oo gabar yar farxumo ku suubiyey cadaaladda la horgeeyey oo haddana la soo daayay laakiin insha allah ma dhici doonto qof intuu dembi ka galay inta la qabta la soo deeyo muddo 6 bilood ah ilmo jira ayuu ku inkiray inta ka dhalay oo yidhi waa ku daaweynayaa wax ku khuraafaad ku akhriyey kadibna ma dhalin buu yidhi wuu inkiray maxkamad baa la geeyey maxkamadeennu waxba kama sheegi karan laakiin waxay ku soo daayeen si cadaalad darraa sababto waxa weye qofkan gabar soomaaliyeed buu farax xumeeyey ilmow ka dhalay waxay ahayd in waajibka uu leeyahay la mariyo iyadoon la marin baa la soo daayey sidaa awgeed annaga qawaaniintu waxay qabtaa qofkan dembiga uu galay in lagu qaado haddii la fasaxay annagu dembi cadan ku haynaa haddii maxkamadda soo fasaxday iyadoo dembi cadan ku hayno ma daynayno waa xiraynaa maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho
ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid a wadaadada qur-aanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu qur-aansaarka si qaldan u adeegsaday inta yidhi qur-aanaan ku saarayaa farax xumeeyey dhibaateeyey uur u yeelay uurkiina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyey la soo daayey oo si sharci darraa loo soo daayey inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka banaadirna sharafay u tahay ummadda soomaaliyeedna sharafay u tahay dowladda soomaaliyeedna sharafay u tahay warkii hore war soo dhaaf nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban waana halka ay reer xamarku ka yidhaahdaan cumrigaaga hadisraagu geeldhala ay asku tusinaa daawadayaal barnaamijka aan maanta idiin wada uu ku duwan yahay barnaamijyadii hore waxaana uu ku saabsan yahay shiikh u galmooday gabar maskiina oo xaruntiisa loogu keenay si uu quraan saaro haddaba daawadayaal intaynaan u gudagelin barnaamijka oo dhammaystiran haddii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad janalka sabskraib noo saarto sidoo kale aad furato gambaleelka yar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aanu maalin walba halkan soo gelino waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ka dhacday dhacdo ugub kuwa cariga soomaalidu degto dhacdadaas ugubka ayaa waxa ay tahay shiikh caan ah oo u galmooday gabar xanuunsan oo loogu keenay xaruntiisa si uu quraan saaro gabadha quraanka lagu akhrinayay ayaa waxa lagu magacaabaa fartuun jaamac waxaana ayd gabar muddo badan la xanuunsanaysay xanuunka asiibay gacmaha oo neerfayaasha ayaa qalali jiray marmarka qaar balse qoyskeeda ayaa go'aansaday inay u geeyaan shiikhan oo aan magaciisa qarinayno annagoo ixtiraamayna eegaynana bini'aadantinimada ama xuquuqda uu qofka bini'aadamka leeyahay si kastaba ha ahaatee shiikhan ayaa gabadhii xanuunsaneed loo geeyey wakhtiga loo geeyey waxa ay ku beegneed 2 saac oo subaxnimo qoyskeeda ayaa markii ay u geeyeen waxa uu ku yidhi gabadhiina qur-aanka waan ku akhrinayaa biyo tahliilena waan cabsiinayaa lacag la-aan ayaan idinku daaweynayaa balse wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad gabadha iga tagtaan oo aad galabtii usoo laabataan qoyskoodu way ka yeeleen gabadhii xanuunsanaydna waa ay uga tageen shiikha ayaa markii la gaaray wakhtigii salaada oo bukaanadii kale oo meesha joogay ay ka tageen waxa uu u yeeray mid ka mid a shaqaalaha xarunta oo meesha ku sugnaa waxaana uu ku yidhi maanta waan ku fasaxayaa ee orodo xaafadiina aad kadib markii wiilkii tagay shiikhii waxa uu daandaansaday gabadhii miskiinta ahayd waxaana uu ku khasbay inay galmo la samayso isagoo hawshii galmada ahayd ku jira ayaana lagu qabtay waxaana loo wacay ciidamada booliska degmada yaaqshiid ciidanka booliska ayaana gacanta ku dhigay haddana waxa uu ku xiran yahay mid ka mid a saldhigyada ku yaala magaalada muqdisho shiikhan ayaa markii la xiray kadib xabsiga ka baxsaday mar labaad ayaana gacanta lagu soo dhigay oo hadda waa cadaalad haddaba dhacdadan ayaa noqotay mid fajac iyo argagax ku reebtay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ninkan hadda waa cadaalad suge haddii lagu dhow wax ku xukun maxaad ku xukumi lahayd fadlan fikradaada qaybta hoose ee commentiga noogu reeb ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid a wadaadada qur-aanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu qur-aansaarka si qaldan u adeegsaday ninkan oo magaciisa aanu u sheegi karin sababa sharciga la xidhiira waxaa loo haystaa inuu u galmooday oo carruurna ka dhalay gabar soomaaliyeed oo reeraheeda u geeyeen inuu qur-aan saaro ciidamada amniga maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada shibis ayaa xaqiijiyey inay socdaan baaritaan arrintan la xidhiira dhowaanna lasoo bandhigi doono caddaymihii iyo goobihii falalkan ay ka dhici jireen gabadha intaas la eg inta yidhi qur-aanaan ku saarayaa farax xumeeyey dhibaateeyey uur u yeelay uurkiina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyey la soo daayey oo si sharci darraa loo soo daayey inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka banaadirna sharafay u tahay ummadda soomaaliyeedna sharafay u tahay dowladda soomaaliyeedna sharafay u tahay maanta waxaan gacanta ku soo dhignay nin dambiile ah oo gabar yar farxumo ku suubiyey cadaaladda la horgeeyey oo haddana la soo daayay laakiin insha allah ma dhici doonto qof intuu dembi ka galay inta la qabta la soo deeyo muddo 6 bilood ah ilmo jira ayuu ku inkiray inta ka dhalay oo yidhi waa ku daaweynayaa wax khuraafaad ku akhriyey kadibna ma dhalin buu yidhi wuu inkiray maxkamad baa la geeyey maxkamadeennu waxba kama sheegi karan laakiin waxay ku soo daayeen si cadaalad darraa sababta waxa weye qofkan gabar soomaaliyeed uu farax xumeeyey ilmow ka dhalay waxay ahayd in waajibka uu leeyahay la mariyo iyadoo la marin baa la soo daayey sidaa awgeed annaga qawaaniintu waxay qabtaa qofkan dembiga uu galay in lagu qaado haddii la fasaxay annagu dembi cadan ku haynaa haddii maxkamadda soo fasaxday iyadoo dembi cadan ku hayno ma daynayno waa xiraynaa maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho
ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid a wadaadada qur-aanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu qur-aansaarka si qaldan u adeegsaday inta yidhi qur-aanaan ku saarayaa farax xumeeyey dhibaateeyey uur u yeelay uurkiina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyey la soo daayey oo si sharci darraa loo soo daayey inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka banaadirna sharafay u tahay ummadda soomaaliyeedna sharafay u tahay dowladda soomaaliyeedna sharafay u tahay warkii hore war soo dhaafnin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban waana halka ay reer xamarku ka yidhaahdaan cumrigaaga hadisraagu geeldhala ay asku tusinaa daawadayaal barnaamijka aan maanta idiin wada uu ku duwan yahay barnaamijyadii hore waxaana uu ku saabsan yahay shiikh u galmooday gabar maskiina oo xaruntiisa loogu keenay si uu quraan saaro haddaba daawadayaal intaynaan u gudagelin barnaamijka oo dhammaystiran haddii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad janalka sabskraib noo saarto sidoo kale aad furato gambaleelka yar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aanu maalin walba